معسي مid kale ka xun buu kaga sii gudbaa waalidkii kama warhayo uma nugla walaaladii uma dabaxsana afkiisa eray xun kama cisho xumaan kama reebo salaad jamaaco ma xariiriyo ma xoogsado waa xeeraan waa xillafale xambadane xinqabe wuxuu ku nool yahay murugo iyo ciil iyo qalbi jab iyo niyad xumo xisaabta uguma jidha geerida iyo dhibaheeda iyo qiyaamaha. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحسن عيسى حسن شاكا يا مسكين كيو عاد إذن سلامية هالجمياشة قولها كتشرة وعربا أرن يرو دق هو أبديت يرن وربحين يرن كسيو بريق أفريقيا وحكتشرة برنامج يرو أي قليه سكراف دلاعي أي سمايين قلبته أو جمعة مركا إيجا واحد حقوده xubnoohii ururka laga saaray ee iska raafdilaacsana ee ayaantaanba aan ku qanacsanayn barnaamijka iyo halganka sidoo ku socdo aad moodana markii horeba inay noo cadayd intii anigu bariga Afrika xataa aan joogay maalmihii ugu dambeysay bilii hore inay dadkaasi meel kale ku xidhan yihiin inay galabta cadaysteen oo ay cadeeyeen inay ururka intay ka baxeen ay ku qanceen barnaamijka ka jira jigjiga iyo Itoobiya iyo Kililka oo ay horumarka iyo ka qayb qaadanayaan dib u curashada barnaamijkii kulay ay jigjiga ugu magacawday dib u curashada qoliyihii media ka dhigi jiray laba TV ba u yeedheen oo isla kala carareen oo ila aadeen dhinaca townka maxaayad ku taala TV-ga RTN la yiraahdo iyo TV-ga la yiraahdo Universal barnaamijkii RTN wuu sii daayay fiidnimada hadda bariga Afrika markay u ahayd laakiin Universal wali muuna sii deynin wada hadallo kulay ka socdo hadii alla idmo xogtan waa xog iska hoose markay barnaamijka uu soo dhamaadan waa in la wadaagi doonaa oo kulay xubnaha shaqada ku jira waxa weeye xubnaha 5 nin hadda TV-ga ka hadlay ee meesha istaagay iyagu iskeenay Ahmed Nasir Ali Gani injineerkii hadda ka hormar bariga Afrika ka ahaa isku duwaha Ahmed Bil oo dhalinyarada halka ka soo shaqeyn jirtay ahaa iyo Cabdi Malik oo ay mar isaga gudoomiye noo yahay ay lahaayeen markay barnaamijka samaysteen wadaad mar ciidanka tagay oo naftuhur ahaayo maxamed sheekh aadan loo yaqaano iyo aadan basay oo South Africa ka imaaday markii horena reer bariga Afrika haddana la jooga marka insha Allah hadaad media iyo saxaafadii wax ku aragtaan hala yaabina intaan baan rabinaa in la wadaago waa 5 xubnood oo iyaguna hadda aan xubno inoo ahayn bay ahaayeen guddiga wada tashiga ee dhulka Ogaadeniya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Nairobi waxa ay ku dhawaaqeen xabad joojin iyagoona sheegay in xabadda ay ku bedeli doonaan wada hadal faafahinta warkani waxa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Cabdishakuur Faarax Igalle kulankani oo ah mid ay isugu yimaadeen guddiga golaha wada tashiga iyo badbaadada Soomaalida Ogaadeniya ayaa maanta ka dhacay magaalada Nairobi waxaana kulankani looga hadlayay aayaha Soomaalida Ogaadeniya waxaana guddigii soo qaban qaabiyay kulankani ay ku dhawaaqeen xabad joojin iyagoona sheegay in xuquuqda ka maqan ay ku raadsanayaan qaab nabad ah waxayna cid walba oo wax tabanaysa ugu baaqeen inay yimaadaan miiska wada hadalka diyaal waxaynu nahay dhalinyaradii golaha wada tashiga iyo badbaadada Soomaalida Ogaadeniya sida ku cad magaca aynu qaadanay 26 bisha Abriil 2017 ujeedkeenu wuxuu ahaa inaan badbaadino shacbiyadeennii halgalkeennii iyo gobonnimadeennii oo intaba ku dhacday god dheer una gacan gashay koox aan u naxaynin ayaan waxaan go'aansanay inaynu ku soo duuno shahadeedii wadadeedii iyo rabitaankeedii kana turjino shacabkii 8 milyan oo Ogaadeniya ahayd aynu inagu gelinay dagaalka inteenu gelinay waliba aynu kaga soo cararnay inaynu dib afkaartii khaldantay inagu aynu dib u saxnaba ujeedkeena iyo hadafkeena iyo golahan ujeedada rasmiga ah ee loo aasaasay macnaha waa inuu dib u soo celiyo wada tashigii ummadda ee gacanta ka baxay oo cid waliba ay lahaanshaheeda lahayd ay ku dadaashay dhiigii u hurtay maal ay u hortay maskax ay geliyeen abaalkoodiina laga dhigay in la dhaho ama waxaan raba yeel ama waxba ma tiid taana macnaha waxaan filayaa inaynan bulshada u qalmin sidaa daraadeed macnaha bulshada reer Ogaadeniya oo kala duwan qaybaheeda kala duwan haday hooyooyinka yihiin haday odayaasha yihiin iyo haday cid waliba tahay waxaan rabnaa inay miiskan
ay golaha wadatashiga ay ka qayb qaataan oo ka mid noqdaan mar haddii halganka shacabka Soomaalida ogaadeenaya ahaa mid qori iyo qalin isu kor saaraayeen maxaa maanta aanu joojinay qorigii waxaanu ku bedelay qalinkii annagoon xuquuqdanadii ka tanaasulin dabar aad iyo aadna waad mahadsantiin ugu dambeyn golaha ayaa soo saaray shir jaraa'id oo ay kaga hadlayaan xabad joojinta waxayna sheegeen inay qaban doonaan dhawaan shirweyne u dhaxeeya dhammaan shacabka reer Ogaadeeniya badbaadada Soomaalida Ogaadeeniya lana magacaabay guddi ku meel gaar ah oo ka kooban 9 xubnood waxay guddigu gudagaleen gudashada waajibaadkoodii shaqo oo ka koobnaa 2 qodob 1 diyaarinta nidaam hufan oo ay guud ahaan bulshada gobolka wada degta kaga tashadaan danahooda iyo midnimadooda 2 abaabulka shirar wada tashi kuwaas oo lagu dejinayo qorshe cad oo lagu badbaadinayo jiritaanka ummadda haddaba muddadii koobnayd ee golahani jiray waxay guddigu xooga saareen la tashiga qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha hooyooyinka culimaadudiinka iyo aqoon-yahanka ka soo jeeda gobolka arrimaha ugu muhiimsan ee ay guddigu bulshada wax ka weydiiyeen waxaa ka mid ahaa qiimeynta marxaladan qallafsan ee lagu jiro qiimeynta marxaladan qallafsan ee ka jirta gobolka taas oo uu keenay dagaalka hubaysan ee muddada dheer ka socda gobolka iyo nidaamka halgan ee ururka ONF gaar ahaan dirirta hubaysan ee tan iyo bishii 1994 ka aloosan gobolka xilligaas oo ku beegnayd xilligii ay ururka ONF iclaamiyay xabadda kulamadaas iyo saragyadaas waxaa diiradda lagu saaray faa'iidada laga gaadhay xabadda ama laga filayo in laga gaadho mustaqbalka dhow iyo waxa lagu waayay oo ay ugu horeyso inta ay naf galaafatay hanti ku luntay iyo tirada bulshada ku barakacday muddadii ay xabaddaas socotay haddaba goluhu isagoo ka duulaya natiijada ka soo baxday kulamadaas iyo wada tashiyadaas sidoo kalena tixgelinaya rabitaanka guud ee bulshada gobolka wuxuu go'aansaday sidan soo socota 1 in aan gebi ahaanba joojino dhinacanaga dagaalkii hubaysnaa ee muddada dheer ku jirnay kuna bedelno in hab nabadeed aan ku raadsano xuquuqda iyo aayaka tashiga ummadda 2 waxaan ku wargelinaynaa naftoodurayaasha hubaysan ee inta dagaalka la geliyay lagaga baxay in ay joojiyaan xabadda Cabdishakuur Faarax Igalle Universal TV Nairobi